madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa siyaasad xirxiran kula dhaqmaya dawladda Itoobiya iyo saraakiishooda ka jooga Soomaaliya haddaba arintani ayaa keentay inuu General Gabre eedeyn weyn u soo jeediyay Farmaajo kadib markii uu sheegay inuusan si fiican ula shaqeyneen Itoobiya mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dalka Itoobiya General Gabre ayaa ku eedeeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu xushmeen waayay ciidamada Itoobiya ee ku sugan dalka Soomaaliya taasina aysan ahayn waxyaabo keeni kara xiriir wanaag General Gabre ayaa bartiisa Twitter wuxuu ku soo qoray madaxweynaha Soomaaliya xurmad darro ayuu ku sameeyay ciidamada Amisom gaar ahaan kuwa Itoobiya markii uu booqday magaalada Baydhabo Gabre ayaa bartiisa Twitter ka hadalkan ku soo qoray saakay waxayna arintaasi ku soo aadaysaa xilli uu dhawaan Farmaajo diiday inuu salaan sharaf ka qaado ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa laga reebay inay ka mid noqdaan ilaalada madaxweyne Farmaajo booqashadii uu ku tagay magaalada Baydhabo sidoo kalena wuxuu diiday madaxweynaha inuu salaan sharaf ka qaato madaxweynaha Soomaaliya ayaa Itoobiya u arkay inay tahay dawladda kaliya ay ka dhismi laadahay Soomaaliya wuxuuna bilaabay inuu siyaasad dabacsani kula dhaqmo hadalka ka soo yeeray General Gabre ayaa muujinaya inuu xiriir fiican ka dhaxayn dawladda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya waxayna arintaasi bilaabatay tan iyo markii uu Farmaajo la wareegay talada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa ka soo horjeestay siyaasadda ay dawladda Itoobiya kula dhaqmi jirtay madaxdii hore ee Soomaaliya wuxuuna ka codsaday inay faragelinta ka dhaafaan Soomaaliya arinta ugu weyn oo ay dawladda Itoobiya ka xanaaqsan tahay oo ay ka hurdilaada ayaa hadalkii iyo go'aankii uu Farmaajo ku gaaray in dib loo dhiso ciidamada qaranka Soomaaliya si looga maarmo ciidamada shisheeye oo ku sugan Soomaaliya oo ay koow ka tahay dawladda Itoobiya waxayna Itoobiya waligeed ka soo horjeeday inay aragto ciidamada Soomaaliya oo ku soo laaftay sidii ay markii hore ahayn jireen dawladda Itoobiya ayaa tan iyo burburkii dawladdii Soomaaliya waxay bilowday inay siyaasadda Soomaaliya faragelin toosa ku haydo hadalka ka soo yeeray Gabrena wuxuu cadeyn weyn u yahay in madaxweynihii Soomaaliya ay doonaysay waqti badan ay raadinayso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waayo Soomaaliya waxay raadi jirtay madaxweyne si direct uga hor imaada dawladda Itoobiya go'aano cad-cadna ka qaata